زيد ابن سعنة نيك الأورنجري عالم بوها حبر عالم يهوديت بوها نبي الدين كقات عليه الصلاة والسلام حلقي الدين كاللقب الله من إلا عليو يدو آنا لقارين أيو ننكاس النبي فرصة بالله اكتب فرصة عين كيا صحابة النبي قصوا هريرها كالسعودان وسوق مقالة مدينة أي دحمر أيام أيو نبي حق الدميتوك جاي مدبو نبي قويسي هنقولي كقبتي إلى نبي عنده عصادان عمر بن الخطاب سيفت قلك كساري مركبوا نيك يهودي قال الله وحيري يا محمد هداتهين بوري نمكينا عربيد قريشين إن بدن بان إلى النولين إلى معاملون إنه حق بني آدم قاعد كقادتان مسوع لساني أنا حقي يسيبه كي مركب النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب سيفت الله صباح يقول يا رسول الله كافر كان يهودي قورتها كقوي يقول فصح مركب النبي يقول عمر ما يسيفت هذا قالك كوي عشبوي سو دوا عمرو سدا سكدوان ayaan aniga isaguba kaaga baahnayn buu inaad isagana ku tiraadid muddadii deynka in lagu celiyo la isku ogaa maalmo ayaa ka dhimanade ha gaadho anigana aad igu tiraada nabi allah deynka dadku kugu leeyihiin waxooga iska sii laakiin umar oo sida kaamaan helin midiba seef baad la soo baxdo waad ka nixisay 8 saaco timirana waa intuu igu leeyahay si 20 ugu darbuur waa intaad ka nixisay قالada ayaa imika dadkan zamankan dambe ka dhaadhicisay in badan diinta islaamku adduunka seef bay ku gaadhay dagaal may akhlaaq bay ku fiday diinta islaamka boqolkii 90 diinta islaamku waxay ku fiday khuluq hasan tabi'ad wanaagsan dulqaad badan taxariis badan sabir badan duca badan dadaal badan oohin badan أسباب تابو النبي رسالة دي سومده كو غارسيناي عمر بن الخطاب نيكي بو كعيي بيت المال كي بو كيناي انتي سي مركو سيب والله با تكلا نوغو دار وا كان قادو او نحي نيكي يهودي war intan anu malhibu kaydi intan aniga nabiga amar igu siiyay inaan kuugu daro waa biiro oo maxaan lagugu biiriyay sababtaan kuugu biirinayna waxa weeyaan waa seeftii ay kula soo baxeen kaan nixiyay buu nabigu igu yiri ugu abal gudintaas ugu abal cali markaasuu ninka yahuudigi alaabtii oo dhan intuu dhulka dhigay buu yiri Umar oo Zayd bin Su'na ninka reerama maqash markaasuu maninka caalimka yahuudada ha maninka baa tahay ha ninka baan ahay oo adoo nin caalim ah oo diintii hore tawraadna wax ka yaqaana oo tawraadna waliba lagu sheegay nabiga sifaadkiisa inuu imanayo maxaa kugu kalifay nabi maxamed jidka dhexdeeda waliba iyadoo aanan la gaarin muddadii deynka in la kala qaato lagu ballamay ilaa deynku waqti buu leeyahay shuruud buu deynku leeyahay lagu kala qaataa aayadda quraanka ugu dheer deynka ka waramaysa iyadoo xilligii la gaarin maxaa nabiga sida ugu dhibaysay buu ku yiri sifaadkii nabiyada lagu sheegay oo dhan Muhammad waan ku arkay illa laba mooyaan labada sifada nabi Muhammad kama soo daahiri karayso illa la taabta mooyaan sifada koobaad waxa weeyaan jaahiliintu markay xaqiisa ay ku xad gudbaan nabi Muhammad alayhi salatu wassalam jahliga loo geysanayo ee jahaladu ay xaqiisa ku xad gudbayaan dulqaad umba nabiga uga ziyaadeen maba carooda buudi wa sifaadka nabiyadu ay leeyihiin carada nabiyada iyo dulqaadkoogana marka la isku qiyaaso waxa qaaliba oo sareeya dulqaadkooga sareeya dulqaadko shahaadateynka iga maqal buu yiri hortaadan ku laqinay ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sago islaamay oo Umar oo gacanta hayuu nabiga u keenay nabiga hortiisana uu ku ashaatay nabiga wadankan aan joogno ummad kale ay nala nool imsana akhlaaqdeena ku beddelay Ibrahim al-Adham Allah ha u naxariistay ayaa nin gaala oo ay wata ayaa u yimiday markaas lagu yiri sheekhaasi waa Sheekh Ibrahim baa la yiraahdo waa nin caabid oo rabbaani oo Ilaahay buu ku xiran yahay dadka muslimiinta agtoodana qiimo weyn buu ku leeyahay ninka yahuudigi baa soo qaaday aygiisii buu soo qaaday baa la yiri
markaabuu sheekh ibraahim aladham oo halkiisii fadhiya buu ula yimiday sheekh ibraahim ma adigaa lagu yidhahdaa markaasuu ha ibraahim baa la yidhaha ibraahim baa la yidhaha ibraahim adham ha ma adiga ahaa su'aal baan ku weydiina maad ka xanaaqi ma i weydii insha allah i weydii adiga iyo aygayga mid ka fadli badan buu ka yidhi nin gaalo oo aan isku diin ahayn hadduu hadalkaa kugu odhan laha adiga ka warasee yeel lahay sow dagaal maha soo maha de sheekhii dhulku eegay uu fikray wuxuu yidhi kolkaan dhinto ee laysoo saara banka qiyaame haddii kitaabkayga gacanta midig layga siiyoon janno galo maalinkaa aygaaga anaa ka fadli badan buu ka yidhi laakiin kolkaan dhintay buu yidhi ilaahay maba qadaree haddii kitaabkayga gacanta bidix layga siiyo naar laygu tuuro aygaagaa markaa iga fadli badan buu ka yidhi uuna iskaga dhaqaaqay ninkii aygii intuu ka tegey ayuu sheekhii intuu raacay buu ku yidhi ashhadu waxaan marag kaaga dhiganayaa adigana ilaahay hortiisana maragaad iiga noqotaa akhlaaqda aad igula dhaqmayso waa akhlaaqdii ambiyada calayhim assalaam halkii buu ninkay ku islaamay akhlaaqda wanaagsan waa halka diinteenna islaamka ugu sarraysa weeyaan waana meeshan la doonaya muslimiintu nebiga inay kaga daydaan sal alla alay wasalam siduu nebigu reerkiisa ula dhaqmaayey akhlaaq wanaagsan istawsuu biاnnisaa'i khayra khayr buu nebigu yidhi dumarkiina kula dardaarma khayr ku ogaada mar walba asiiraat ilaahay baa aqalada niigu dhex xidhay meel kale u dhaqaaqi maysa aday kuu fadhida aqalkay ku sugaysaa ubadkaagana way kuu korinaysaa adigana way ku raalli gelinaysaa iyadoo haddana hawshaa dhan qabanaysa ayaa gabadha muuminadda haddana guriga dhexdeeda ilaahay ay ku adeecaysaa markaa buu nebigu odhan jiray saxaabadiisa waxaa igu maqala rag reer madiinaha xaasaskooga inay dilaan laakiin waxaa nii sheegayaa buu nebigu yidhi raggaa dumarkooga dilaaya kuwa inigu khayr badan ma aha buu rasuulku yidhi kuwaase khayr ma leh buu rasuulku yidhi kuwaase khayr ma leh dardaarankiisii u dambeeyey markuu dhimanayeyna salaaduu nebigu ummadda kala dardaarmay salaadda iyo dadka maaragtaane aan milkinay ee ilaahay gacmaheenna uu soo geliyey waa haweenka baa la yidhi iyo addoommaha labadaa ayuu nebigu nagala dardaarmay xuquuqdooda in layska ilaaliyo markaa buu nebigu odhan jiray akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa wa khiyaarukum linisaa'ihim wa ana khayrukum liahli baa nebigu yidhi akmalu lmu'miniina iimaana mu'miniinta kuwa iimaankooga uu dhammaystirmay waa kuwooga dabeecadda wanaagsanna buu nebigu yidhi kuwa inigu khayr badanna buu nebigu yidhi waa kuwa reerahooga u khayr badan buu rasuulku yidhi anaana reerkayga u khayr badan buu rasuulku yidhi anaa reerahayga u khayr badan 9 dumara ayaa mid walba haddii la waraysto la odhan lahaa xaasaska nebi maxamed uu xaasaskiisa teebii ugu jecel yahay haddii la yidhaahdo mid walba waxay odhanaysa nebigu anuu igu jecel yahay hadal xun ma odhan jiray nebigeenu hadday marka cadhaysiiyaan oo ka aamusi jiray bas waliba markee maalintii maaragtaane caaisha iyo xafsa fii suurati taxriim ilaahay waa ka kaga warram in tatuuba faqad saqad quluubukumaa wain tadaahara calayhi faina allaha huwa mawlaahu wajibriilu wasaalixu almu'miniina waalmalaa'ikatu bacda dalika dahiir markay nebi maxamed calayh sala slam dumarkiisu ay shirqoolka u sameeyeen oo shirqoolkay sameeyeen muxuu ahaa waxay yidhaahdeen waa ka ilaahay kaga warramay suuratu alaxzaab waa markii dowladda islaamku ay dhaqaale heshay in magaalada madiina markay saxaabadu dagaal ay qaadaanba waxay la soo noqdaan khanaa'im xoolo iyo dhaqaalay la soo noqdaan markaaba haweenkii nebigu isla hadleenoo waxay idhaahdeen dee dowladda islaamku dhaqaala yeelatay haddee toole nebigu masaariif ha noo sameeyo erayadaa bay markaas la dhex wareegeen markaasaa nebiga jibriil ku yidhi dumarkaagii way kuu shirqooleene ilaahay wuxuu ku amray inaad ka hijrooto hijra meel buu nebigu iska galay markaa keligii iska seexdaa lama hadlo cunto uma doonto ma ag jiifsado bas ilaa magaaladii madiina waxaa ku fiday war la leeyahay nebigu xaasaskiisii u wada furayba abubakr sidiiq radia allaahu canhu ayaa soo booday deedna markaasuu u yimid inantiisa caaisha radia allaahu canha markaasuu kuhi aabba ii fadhiisa su'aal baan rabaa inaan ku weyddiiye oo su'aashu maxay tahay bay ku tihi aabbo nebigu muu ku furay
may ima furin dembi baad ku dhacdeen haa oo maxaa niga dhacay dee wax kale ma odhane nebiga weli umaba sheegin isage laakiin annaka dhexdeedii baa waxaan isnidhi nebiga ha loo bandhigo ha la weydiiyo ha la yidhaahdo dowladdii islaamku dhaqaalay yeelatee nebigu biil iyo masaariif hana siiyo intaas ma intaa un baa haa cumarna uu socdo xabsi u tegey xabsana u weydiiyey cumar sidii si la eg bay ku tidhi markaa deedna markaasaa nebiga sal alla alay wasalam aayadahan la leeyahay kala doorashada ee dumarka nebi maxamed ilaahay uu kula hadlaya la leeyahay yaa ayuha الnabiyu qul liأزwaajika in kuntunna turidna alxayaaةa الdunya waziinataha fatacaalayn umatickunna wausarixkunna saraaxan jamiila wain kuntunna turidna allaha warasuulahu wاddaara alaakhira faina allaha acadda lilmuxsinaati minkuna ajran cadiima aayadaha kala doorbidashada ayaa nebigeenna markaa ku soo degay oo la leeyahay waxay aayaduhu ku socdaanna waa dumarkii nebiga calayh isalaatu wasalaam xaasaskii nebigay ku socdaan oo la leeyahay ilaaha iyo rasuulkiisa iyo jannada oo dhinaca iyo adduunyada iyo ziinadeeda oo dhinaca kala doorta baa lagu yidhi dadna markaa nebigu wuxuu ka bilaabay xaasaskiisa tii ugu jeclaa buu ka bilaabay ikhtibaarkaas waana tee caaisha radia allaahu canha markaa buu nebigu u yeedha caaisha waxii baa soo degey waxyigaa kala saaraya haddeetooda caaisha waxii baa igu soo degey inninkuu niga warramaya waxyigaas inninkuna inagu socdaa waana kala doorasho waana kuu sheegaya qaraar qaadashada ha ku degdegine aabbaha iyo hooyadaa baa noole la soo tasha buu ka yidhi markaabay tidhi waa hagaaga bal horta ii sheeg aayadihii qur-aanku nebigu ku dul akhriyo markaabay caaisha tidhi ma hooyaday iyo aabbahay baan kala tala gelin bay tidhi nebi maxamed iyo ilaah iyo jannada may hortaadaan ka qirayaa bay tidhi nebi allow maanta intii ka dambaysana adduunyo dambe qalbigayga ku soo dhici mayso adduunyo dambena ku weydiini maayo waxaanan marag kaaga dhiganayaa markhaati aad iiga noqotaa anuu waxaan doortay ilaaha iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhiraan doortay maanta wixii ka dambeeyana adduunyo dambe ku weydiin maayo bay ku tidhi markaasuu nebigu hi haye way kaa dhan tahay adiga markaabay tihi sida aad aniga ii weydiisay soo xaasaskaaga dambena u weydiin maysid markaa buu nebigu hi haa mid walba saasaan ugu bandhigi buu ku yidhi markaabay ku tidhi haddaba aniga doorashada adiga iyo ilaahay aakhirada aan doortay dumarka kale ha iiga sheegin bay ku tidhi halkaa maxaad ka fahmaysaa markaas ilaa dumarka maseerka ilaahay baa ku abuureen maxaad mooddaa inay rabta nebiga inay keligeed la soo hadhaba say u yareg tahay dee deedna markaa buu nebigu sal alla alay wasalam yidhi may wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi iyakuna ima weydiiyaan oo ima yidhaahdaan caaisha maxay dooratay haddayse i weydiiyaan buu nebigu yidhi anna waan u sheegi buu nebi naxariis badan buu ahaa moogta oo dadka ilaalinaya buu ahaa hadday i weydiiyaan oo i yidhaahdaan caaisha ayay dooratay anna wallaahi ka qarin maayo buu nebigu xabsuu ku xijisiiyey yaa rasuulallah caaisha maxay dooratay ii sheeg caaisha anay dooratay anna adaanku doortay dee yaa salaam lanna nebiga sal alla alay wasalam dee doorashadiisu ciyaar maaha dee shaksi caadiya maaha waa nebi rasuulah sayid اlkhalqi weeyaan khayru man daba calaa wajhi اlardi arlada korkeega qof ka khayr badan isaga maba soo marin baa la yidhi aqalkuu joogo naxariistaa ku soo degaysa aqalkuu joogo jibriil baa imanaya calayhi الsalaam aqalkuu joogo barakaadka ilaahay baa ku socda waxyigaa ku soo degaya aqaladiisa markaasaa kulligood ikhtibaarkii way ku wada najaxeen waxay yidhahdeen ilaah iyo rasuulkiisa ayaanu doorannay bay yidhahdeen maalintaasuu nebigu yar cadhooday maalintiina nebigu dumarkiisa uu ka aamusay macaytamin xataa marka uu nebigu yar cadhooday wuxuu odhan jiray yaa xafsa ittaqi illaah yaa caaisha ittaqi illaah erayadaa buu odhan jiray innaku laakiin maanta eraydeen isticmaallaa bay kula tahay markii saxaabadu dagaalkii khaybar ay yuhuudda ku soo jebiyeen dadkii sabiga ahaayee ee la soo qaaday magaalada madiine lagula soo noqday gabadhii ugu quruxda badnayd baa nebiga loo doorbido nebiga la siiyey
وصفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها markaa bay saxaabadu ku yidhahdeen nebi allow dadkii aan soo qaadannay gabadha ugu qurux badan ayaan adiga ku daynay ku yidhahdeen qaada nebi allow ile zamankaasi dadka markay dagaal qaadaan ee ciidankii kale gaalada ay jebiyaan ee raggii ay noqdaan wax la laayay iyo wax dhaawacmay iyo wax baxsaday ay noqdaan iyo wax la soo xidhay ay noqdaan ehelladii iyo reerihii ragga iyo waddankaana ku abuurnaa saynan u dayacmin ayaa shareecadda islaamku waxay ka dhigtay haniima sabya alfay in la soo qaada dadka markaasi oo dadka muslimiinta markaas si cadaaladda loogu qaybiyo marka waxaa dhacaysa nin in laba qof la siiyo mid saddex la siiyo mid afar la siiyo mid la siiyo ninba dee inta qiyaasta ku dhacda la siiyo de haddana dagaal kalaa la baxaye gaalada waa laga guulaysanayo guusha islaamkay la socotaa magaalooyin dhan oo ubad iyo dumar ku hadheen baa la soo qaaday dadkii waaweynaa si dadkaasi mas-uuliyaddoodu cillo ay ugu dhicin u dayacmin ayuu markaa nebigu intay soo qaadaan saxaabadu ayaa muslimiinta loo qaybinayaa wamaa malakat aymaanukum weeyaan xaasaskaasina waxaa la odhanayaa waa dumarkoogii waa iska guursanayaan waa iska qabayaanoo waxay dhalaanna waa ubad muslim markaa haweenaydaas oo aad u qurux badnayd baa nebiga la siiyey markaa buu nebigu u yimid caaisha iyo xafsa wuxuu idhi gabadhaaba laygu deeqoo la ii keenee dee caroos baan ahay gelbiye buuhi gabadhan orda ii sii diyaariya markaasay u tegeen alli markay u galeen waaba gabarh qurux badan ba ka wada qurux badan ba iyo way sheekisayba xafsiya caayishana way is eegeen labadaasina dhinac bay ka wada socdeen moogtahay oo dumarka nebiga baa layidhi qaarna caayisha iyo xafsaa dhinac u hogaaminaysay qaarka kalena umu salama hogaaminaysay baa layidhi iyo juwayriya markaasay sidaa u eegeen walle tan hadduu nebigu caawa la seexdo dib dambe nii xasuusanba maayo markaabay way u soo hagaajiyeen way ka soo noqdeen xabsaa nebiga ka hor timid xabsa bal ka waran yaa rasuul allah dee way aroosadda way kaa horraysaayo waan kuu hagaajinay bal hore u soco hay maxaad aragtay dee yahuudiyad baan arkay bal hore u soco bay ku timi haddana caaisha ka hor timid oo cadhaysan caaisha waa sii hooyanaya bal ka waran wuxuu waa lagaa horreeyaa dee ka waran maxaad aragtay dee yahuudiyad baan arkay ordog markaa buu nebigu uhi yaa caaisha itaqi illaah waa muslimad gabadha buu yaa rasuul allah waa yahuudiyadeeda u tag bay ku tiri markaasuu nebigu u yimid 7 cisho markaa la jooga iyadii markaa bay soo buuqdaan dumarku maalinkiina nebigu ragguu la joogaa iyadana markaa dumarka ayaa u imanayo markaa waa caroosadii waa la maaweelinayaa safiyata bintu xuyay buu nebigu habeen u soo hoyday iyadoo ooyeysa bal sida nebigu dumarkiisa ula dhaqmaya ee ugu kala ilaalinayay markaa buu nebigu sal alla alay slam ku yidhi maxaa ku helood la ooyeysaa markaa bay tihi yaa rasuul allah dumarkaaga qaarkood markay ii yimaadaan waxay leeyihiin waa yahuudiyad waa tuma iyo tuma waa caaisha iyo xafsa radia allaahu canhum markaa buu nebigu yidhi dee u jawaab dee maxaan ugu jawaabaa waa runtoodu ana naag yahuudiyadda aan ah iyakuna waa gabdho carbeed weeyaan markaa buu nebigu ku yidhi saad ugu jawaabaysa anigaa kuu sheegay kolka yahuudiyaddii ay ku yidhahdaan waxaad ku tidhaahdaa nayaaday dhegaysta aniga aabbahay nebi buu ahaa adeerkayna nebi buu ahaa zawjkayguna waa nebi maxamed bal naagta intaasoo nebi la xidhiidee la xidhiidh la yeelatay iska soo dhex saara ku dhan buu ku yidhi nebiga aabbaheed waa nebi baa la yidhi oo nebi haaruun bay ku abtirsanaysay adeerkeedna marka ayuu noqonayaa muusa kaliimullah zawjkeeguna waa muxamed calayhi الsalaatu wassalaam markaasay habeenkiibuu markaa nebigu ku soo hoyday safiya markaa yidhi haye safiya maanta farxad baa kaa muuqatay bal waran walle dumarkaaga sidaan maanta u gala bay tihi nebi allow dee waan ku xidhay bay tihi khalaas intii aad ii sheegtay un baan ku idhiyo way is eegeegeen un waxaan ku idhi un naa maalin walba aniga yahuudiyad baad ila soo taagantihiin ood ila timaadaan oo yahuudiyadda baad igu haysaane aniga aabbahay horta ma taqaanaan waa haaruun baan ku abtirsada anugu waa nebi adeerkayna waa muusa kaliimullah waa nebi zawjkayguna waa muxamed waa nebi waan ogahay ninka nebi inuu ini qabo laakiin bal naagta nebi ku abtirsateen aniga ahayn ku soo sheegay bay tihi halkaas soo dhiga waxay tihi maalintiiba ugu dambaysay dumarkii nebi maxamed oo ku hadal qaadayo inay yidhahdaan yahuudiyad
khuluqda inakana akhlaaqda allah ina siiyo saasuu nebigu xaasaskiisa ula mucaamaloonayay uu kala ilaalinayay في بعض كتب waxaa ku taala tu kala nabiga la siiyay markaasa way u soo galeen dumarkii nabiga markaasay arkeen quruxdeeda iyo jamaalkeega markaasay tan nabiga marka la salaamayo xal lagu salaama luqada carabiga anigu ma aqaanay bay ku tiri markaasay ku yiraahdeen markuu nabigu ku soo galay habeenkaada waa aroos oo ku soo hoydo nabiga waxa lagu salaamaa ya rasuulallah a'uudu billahi minka ya rasuulallah ilaahay baan ka magan galay markaas laqad cudta cadiima mu nabigu ilaahay weynaa baad iga magan gashay marba hadaad ilaahay iga magan gashay aniga xaasi noqoni meeside orado dadkiina u tagbu nabigu ku iska sii daayataana markaa buu nabigu dumarkaas sida ii galeen bal eega caawda ma dagaalamin ma cadhoonin kaftan badna calayhi salaatu wasalaam ilaahu akhlaaqda inakana nasiib ikhwaani waxaan ka wadaa xataa tarbiyadda awlaadda nabigu siduu u tarbiyadaynayo khudbadda mambarka soo taagan buu arkay nabigu xasan iyo xuseen oo yaaciyo soo galay masjidka oo ka dhaadhacay mambarka nabigu labadoodii buu soo xambaaray mihraabku nabigu la yimiday mambarka dusheedii wuxuu labada markaan arka ma joogi kara buu hayla yaabi nabigu ilaahu labada waan jecelahay cidda jeclaatana jeclow cidda labada nacdana ilaahu nacbu nabigu labadu nabigu sida ugu jeclaa ummadiisa ummadani maxay ugu abaal guday ma taqaanaan labadiiba waa la dilay حسين قورتا لغا غويي حسن سنبا لغو دله سن محبتي اهل البيت كنا شيعه واتا الله ويعت بغضي اهل البيت كاي نعبايين خوارجين تنا واكو دين تسدا لابك اوغا بخا قاسدا واكو اوغا بخا وعلي يقويسكيس شيعنا علي محبتي سيكو قالودي خوارجينتنا نعيبك علي اهل بيتك اي نعبيين اي كو قالوا بين داقدك كغا بخين لبداسو نبي غوري ما جوغي كره markaan arkay ilaahu nigi jeclaadana jeclow niki nacana ilaahu nac salaada isagoo tukanaya haduu yimaado Xuseen oo nabiga dhabarka ka fuulo nabigu sujuuda uu buu dheereysanaya leeyahay waa sunnaha markuu nabigu tukanayo Xuseen dhabarka nabigu uu iska dul fadhiyo ku ciyaarayo dhinac nabigu حسين وعيارسينا يا حق قلبي أنا نبي أيوك كحرية هاي إلهي بوك كحرية هاي يقولون كذا حابس من الأقرع نرمية أيا نبي قوي مدوي يا رسول الله أبد كما عيالك ما دون كتاها وان دون كنبي أبد كيني والله أنا تبون ويل بعد الله ولي منك ما دون كنبي بركاب ولي دم حنكون سمعنا دي قلبك إلهي رحمة الله وكسارة حنكون سمايا هدي إلهي قلبك أو نحريستي وكساري maxaan kuu sameeyaa buu nabigu yidhi man laa yarxam laa yurxam ninka aanan naxariisan buu nabigu yidhi ilaahay isagan uma naxariisto cumar binu khadaab siiradiisa waxaa ku taalla isagana nin saxaabada ka mid ah cumar u yimid oo yidhi anigana ma aragtaane dowladda islaamka waa ta ballaaratee madax iga dhig oo magaalo waali iiga dhig oo magaalo ii dhiib markaasuu cumar ku yidhi radia allaahu canhu waa runtaa waa hagaag waad u qalantaa in magaalo lagu dhiibo لكن نوت كات كل شغله تجي براكو ديارنا سواحد يوصل قالها بوكيل حوي مد عمر بن الخطاب وعيالك ودلي كو اوها لا عيار يا دنكنا يا انو اسنا دنكنا يا مركز يا امير المؤمنين وعيالك ما لا دنكدا مركز ها صوبتكيga ما والله انا وعيالكيga من ما دنكن مركز عمر كوري ورقدان كو ديبي بلي سعلي وكقاد وكجحجح aqalkaaga fadhiisa buu keeyo reerkaaga u naxariiso horta reerkaagii baad u naxariisan weyday ilmahaagii sideed ummad ugu naxariisan buu keeyo ninka mas'uul noqonaya waa inuu ahaada nin cadaalad sameynaya ninka mas'uul ummadan u noqdo doonaya waa inuu ahaada nin naxariis badan ninka mas'uul noqonaya waa inuu ahaada nin ummadda ka fikiraya mustaqbalka ummadda ka fikiraya taasay haayeen saxaabada rasuulku iyo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam awlaadooda waqti bay ku bixinayeen diintay ku tarbiyadeynayeen inaku maanta waxa lana ilmi iskuulna waa dhigtaa dugsi quraanna uu dhigtaa macallinka dhabtu waa hooyada iyo aabbaha hadday labada gurigooda ay ku hagaagaan dhexdiisa oo ubadkooga guriga ku tarbiyadeeyaan ilmuhu tarbiyada aqalka uu ka soo qaato banaanka ula soo baxaya maalin dhaweytaan sheegayay Cabdul Qaadir Jaylaani Allah u naxariistay siiradiisa waxa ku taala isagoo yar
agoon buu ahaayo yaraan buu aabihii kaga dhintay hooyadii baa dhaqaale intay soo siisay ku tidhi safarkaa magaalada u socda raaco orodoo cilmiga culummada ka soo baro safarkii iyo dadkii uu la socday ayaa niman tuugoo mooryaana dhexda u galay daadna markaasa waa habeen madow qof walba markaa wixii uu sahay haystay iyo lacagu haystay buu qarsanayaa markaas marka tuuggii horreeyeysa baa qabtay isagii oo yidhi waryaa yaroowe maxaad haystaadu marka lacag badan buu sheegay soo saar uu u dhiibay lacag aad u badan waa maxay lacagta intan leg hooyadii baa soo siisay oo xageed la tegaysa طالب العلم بانه مقالة تجيو حلقات كمساجد كسعودان كنت تحميا لأنه مصاريف تيدي السنوات أن عني لهايو هو يدي بيسوسيس ودتك واكو وحوك قرقرسني نجا قرسني يه هذا ما حد وحاجة ولا دمو يدل مال هذا كوجا شوي يدي وعر هو يدي بيقول دردارتو يقول تري واللي قا بينها شيء حداد بين لون نقطة إلى هين أكون نعب بني آدم ويكون عياني وربنا لها حتى قالوا ما يجعشها يا بين الله عندنا ما جعله ظالمك عندنا ما جعله بلن باجيه حدتكم ما جعله توق حدتكم ما جعله عاقل والديك حدتكم ما جعله مفسد حدتكم ما جعله هو يدي با يقول تريبو يري ولقى بين هالشيء حداد بين على النقطة إلى هنا وكن نعي من آدم ويكون عياني هو ينكي قعنت وقبت توقين تتوقي وقوي ناب وقيي بل المال وحولي دقيسو او دقيست كينا وقوي حاد لو يدين بالغو يدي توقين توقوي نا وحو يري هدي هو يدي لمن نقول لحيد انيغا هو يدي هدي هو يدي لمن نقول لحيد انيغونا توق من نقدين بالفش تربية والدك المها السامين بيكو يالتا تربية والدكو مستقبلك أبدك إن حاجة جسا ما أنت إنكم مركان أبياش يكشى كين إنه محاني لنا ما نقفي عنا هين مسوا كفي عنه بل شيء قدر سين نقفي عنا إنك أكو قوم بدنه وكرم قال سنة شيء ولكن نقدر نما في عنا يعني حتى صدق ما أنت إنكم أن دينت أن قلي علماء أي إنك إنه جد ذالين هي كمان لو جدد عليه ما يهلن كنت سنة كهر صدنا سنة كهر صحوة ما أنت إنكو أن هاي سنة هي الدعوة هي علماء هي مارك تاني اجتماعية ده هي خير كالسعودة يكو ما يهلن إنك كجامعة دفعا إنك كأقوم بدن إنك تكنولوجي سوق قارني ما أنت إنك كأقل قروح بدن إنك كمواصلات في عن إنك كاتصالات وناكسة الدوك الضافية كي جوجي أيات مقالي مقالي مك صدا عدو داونيس هذا ده ولا سعودان مرو مالين تقدوك جوج ودقيسنا يعني ضد ماذا يكان نقفعنا لكن حق ماتريال كأنك كماتريال بدن حتى لا ده هي أباياشيو ayakoo teknolojiga inaku maanta aan haysanin soo gaarnay iyakoo aan soo gaarin ayay naga dadnama fiicnaan haddaan leenahay kuwa inaku aan dhali doono say noqon doonaan bay kula tahay kuwa aad dhali doonto sidee noqonaya kuwa anu aan dhalay sidee ku damay doonaan kuwa aan dhalay kuwa si dhali doonaan sidee noqon doonaan bay kula tahay macallin carab jabaqu lahaa ardaydu u dhigay alif alif ba ta ra markuu gaaray ra arab jabaqu leeyahay ra ma karo la abuda la ardaydu maxay oranayaan wal sheegada la oo bay oranayaan markaas uu leeyahay aniga idhaama la dhaxada la oo bay yiraahdaan say u dhaamayaan war aniga iga roonaada buu kule arab jabaqan qabaaye la dhaxada la oo bay yiraahdaan maanta زمن كان وزمن أذكر رنتي ما أنت نكون حجر عيال كيني واحد لنا وربنا قررون هذا حكى رونا يعني يكو آلات كان يسوق قارين والنا بقول لك السجالية سجاش الفساد كلا سوق حقلية سوق قارين أربع كون دبالة سياسة ونده هو داون يكون دبالة حد المير ولا يابي بقى
dadkii waaweynaababa maanta ayaa maskaxdoodii bedelantay oday iyo islaan aqal intay ku wada hoydeen ciyaalkiina iska seexiyeen ishaleelka ka waran isna facebook buu xaggaa ula jeestay iyadna faasiq buug bay xaggaa ula jeesatay mid baa la sheegay waagiiba ugu baryay labadoodii markaasuu yidhi naa maxaad caawo dhan ku mashquulsanayd markaaba ta adiguba xaggeed ku jirta caawo meel kale umaad ku jirtay waa dadkii waaweynaa halkaa hadday marayaan dhallinyarada markaa maxaan kala yaabaynaa kuwa maanta sida kuwa nool ee qaar ee zamankan dhallinyaradan dhalay hadday waxaa soo gaadheen ee ku mashquuleen ee ku indhabeeleen oo ku caqli beeleen kuway dhali doonaanna bal ka warrama dadnimo markii la eego dadkii hore inaga dadnamo fiicnaa waayo been ma sheegi jirin iyagu ballan ma baajin jirin qabiil wax la yidhahdana iyagu ma yaqoon gaalna iskumay dhadhajinayn gaalna iskumay dhadhajinayn innaguna maanta dad baa ku ducaysanaya mid baa beri mid xajka u socda ku yidhi waniba meeshii fiicneeda carafaad u socotaayo ducada igu soo dar markaas maxaan kugu soo duciyaa bal sheeg wuxuu yidhi yaakhi ciyaalkii labana dibadday u baxday laba unbaa igu hadhee labadaana fiisihii baan u xereeyey inuu ilaahay u fudaydiyo iiu soo ducee buu yidhi yowma carafa ayuu leeyahay ilaahu ciyaalkayga halkaa ku gur ilaahu ninkaas ay soo faree ducada ciyaalkiisa halkaa u gee war dadnimadii mee aawe dareenkii aawe caqligii xataa cilmigii markaan ku soconi weyne sharcigii ilaahay caqligoogiina maanta muslimiinta kuma socdaan caqli dad kale ay leeyihin baan ku soconnaa maanta marka dadka inaga dambeeya inaan waddo u jeexno soo maaha say u roonaadaanoo bal say u badbaadaan mise waan ku daawannaa balii warraba maan ku daawannaa mise waxaan qaadnaa dadaal ku saabsan sidaan innakuna nafteenna u badbaadin lahayn ubadkaan dhallayna ay u badbaadi lahaayeen ubadka ay dhalaana ay u badbaadi lahaayeen soo inaan qaadno soo maaha ummu sulaym radia allaahu canha markuu nebigu madiinata almunawara uu yimiday inankeeda anas bay nebiga u keentay tidhi yaa rasuula allah islaan maskiinadoo faqiiradaan ayaan ahay waxaan kugu soo dhoweeye ma haysto laakiin waladkan baarigaa ilaahay i siiyee ha ku adeega iga qabsa bay ku tidhi way bixisay waqaf diinta ha kaa barto nebi ilaahay soo diray baa tahoo barakaysane ha kuu adeega adiga maalintuu nebigu dhimanayana way dul timid yaa rasuul allah adigan iska bukee khaadimkaaga anas ma u ducaysay iyo ku tidhi markaa buu nebigu waan u ducay nebi allow markaasuu nebigu ugu duceeyey 3 shay ilaahu xoolihiisana barakee buu yidhi cimrigiisana barakee awlaaddiisana barakee anas binu maalik wuxuu noqday saxaabada ninka ugu cimri dheeraa ugu dambeeyey dhintay buu noqday baa la yidhi waxaa kaluu noqday meesha uu joogo muslimiinta ku nool ninka ugu xoolo badan buu noqday waxaa kaluu yidhi 100 anigu aan dhalay buu yidhi godkaa ku rido waan aaso shafaac baan ku aasay 120 wiilna waan la cunteeyey buu yidhi waana ducadii nebiga buu yidhi taas ummu sulaym way fahamtay mustaqbalka inankeygu wuxuu ku hagaagi karaa waa inuu nebi maxamed uu adeego calayhi salaatu wasalaam iyo markuu nebigu xanuunkuu la dhiman doono uu la dhacayna intay u timiday tiri nebi allow khaadimkaaga ma u ducaysay u ducee nebi allow inankaygaas mustaqbalku waa taas haddaan doonayno inaan inaku hagaagno ilmaheennuna noo toosaan ilmahaan dhalnay ilmahay sii dhalaanna ay noo hagaagaan haddaan doonayno waa inaan nolosheennan aan ku noolayn wax ka bedelo weeyaan qaaradda amriika annakoo beri jamaacada ayaa qiso cajiiba la iga sheegay gobolkan la yidhahda massachusetts boston magaalada boston ru'asaa'u lkanaa'is kaniisadaha ku yaalla statekaas ayaa shir bay ku galeen magaalada boston waxay ka shirayeen dadkan qaxootiga ee ka keennay soomaaliya miyaa ku najaxnay oo muraadkaan ka lahayn ma ka gaadhnay mise waa ku khasaarnay markaasay hadleen waxay dhahdeen waa ku khasaarnay ile dadkan qaxootiga dhaqaalaha lagu qaadaya yaa bixiya kaniisadaha soo bixiya markay dalkaa galana kaniisadaha istiqbaalo ugu waan ku khasaarnay buu yidhi mid wuxuu yidhi waxaan ugu khasaarnay
madaaristii qur-aankay fureen masaajiddii bay dhiseen xijaabkii iyo shacaa'ir alislaam bay muujiyeen kaniisadihii bay naga iibsadeen masaajid u bedileen aadaankiibaa gobol walba ka baxaya shacaa'ir alislaam dhallinyaradoodu garhkii iyo khamiiskii bay muujiyeen waa ku khasaarnay ku kalaa hadloo yidhi may kuma khasaarin borosasku meel fiican buu socdaa buuhi meel fiican si fiican bay ula haystaan buuhi waayo kuwa annaku aan keennay iyo kuwa waaweyn uma soconno kuwa ay gacanta haysteen ay laalaadinayeen ay la yimaadeen dalka ku soo dhashayna uma soconno kuwa ku dhali doonaanna uma soconno jiilka afraad baan u soconnaa buuhi ku dhalan doona maraykan ee labaad kuwaabaa masaajidda ay kuwani kaniisadaha kuwani masaajidda ay ka dhiseen kuwaabaa ku soo celin doona buu yidhi maxay kaniisado la islama gaadhin ba imika yaa isla gaadhiba 6 sano 10 sano 8 sano iyagoo joogay badilmeenba dadkii dhulkaa naga tago intii ilaahay u naxariisatayna ee damiirka iyo dareenka lahayd ee duca hore ee u sabaqdayna waa kuwan dhashoodii kala soo yaacaya la iskala yimay waxaaba la isla soo galay waddannadii islaamka 2 sano ka hor annagoo xajka joogna ayaa supermarket halka ay reer Jabuuti degan yihiin u dhowaa ayaa xilliga fajarkii aan ka soo baxnay salaadii waxaan iskugu imanay dhalinyar waddanka u dhalatay Makka Mukarrama ku dhalatay Makka reer Makka oo surwaal gaaban qabta ay xiran yihiin surwaal gaaban baabuurkana music ba ka baxayo bug ba oday bay yaa saas Xuseen soo kale buu dhahay ashana joogno ma Paris ba buu mise waa Makka reer Jabuuti Paris bay tagaan markaas aan ku nimay waa Makka tal Mukarrama xafad zaahir baan joognaa markaas dhashani ma kuwa dibadda ka yimiday oo meesha ku soo qaldamay waa soo deegaanka dhulkan markaas aan ku waa weydiinba baan weydiiyay manayna min Makka مواليد مكة أنت مواليد مكة بعد مكة كل شيء يقول لي هاي مكة مركز مدح قبسة وذي درين لبوا هاي وفكرة موقت والداعية وحول واحد كتر هذا سؤال كان قابني هذا إنه بعد مكة نحن ذا قوة ضتان أنا كدت كيجي يدل كيجو سجاش ميدي بالله سوق بيجو شنية سجاش كي هالك رجبوتي أي مريين كله أياد إنكم ما أنت مرة سر مكة مكة اللي بدلي كويت جاي مركب محط كوريسان كي الرياض كل شيء اللي بدلي كي مدينة كل شيء اللي بدلي بلاد الإسلام قهر الإسلام كي كل شيء أيال اللي بدلي سدين اللي كو بدلي والله فكرة يا والله قوسهم مقيا هي أديك إنك ولا ما توه هرودا ما أنت إن الهرودا كعنا الله بحياه مركز ودين تاني الله نسيي وبتكلم كتر بيدينه رجعنا وين أخيارتنا aan dacwadii dadaalka diinta aan isku taagno waayo hadaan diinta u gargaarno ilaahay ballan buu noo qaado wuxuu yiri yaa ayyuhalladina aamanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ba ilaahay yiri ku ilaahay nabiga rumeeyayow hadaad ii gargaartaan ba ilaahay yiri oo diintayda u gargaartaan aniguna waan inii gargaaraya gomadihiinana xaqa ku sugaya ba ilaahay yiri hadaan ilaahay diintiisa u gargaarno yaa noo gargaaraya wargargaarka ilaahay kaaga baahan yahay waa maxay adigoo daciif waxay ka dhigan tahay haddaad diinta kor u qaadaan haddaad diinta inagu ku dhaqantaan haddaad walaalihiinna muslimiinta u nasteexaysaan haddaad ubadkiinna diinta bartaan haddaad diin ku wada dhaqantaan haddaad diinta ka tashataan haddaad diinta dhaqaalihiinna ku bixisaan haddaad madaarista iyo masaajidda iyo dacwadda iyo khayrka aad dafaqaysaan oo diinta ilaahay ka shaqaysaan ilaahay baa anna waa nii gargaarayaa zilzaal kastoo dhaca caalamka fidnad kastoo timaadana ni dhaqaajin kari mayse lugihiinna gomadihiinna ana xaqa ku sugaya baa ilaahay yidhi fitnad baa soo socota la yidhaha dajaal muuminka dajaal waxba ka qaadi maayo ugu marka walaalayaal waxaan ku soo gabagabeynayaa nasiixadaydaas dhegaystayaal diineed oo wanaagsan waxaa ka fiican shaqaale diineed oo wanaagsan maxaa ka fiican nin baa la marti qaaday wuxuu yidhi nimanka maantana marti qaaday way mahadsan yihiin haye laakiin ninka berina marti qaadi doonaa ka sii mahadsan buu yidhi
saad masjidka u soo camirteen waxaan ilaahay waad mahadsantihiin jazaakum allahu khayr laakiin waxa ka sii mahadsan oo aad ugu sii farxaynaa ninka ilaahay dartii u baxa ee habeenka jimcaha markaska baytul maal intuu yimaado diinta dadaalkayga qaybta kaga aadan ka qaata waryaadahayn haddaan maanta innagu aan xaqa ka hadli weyno baadilkaa lagugu yeedhi haddaad masaajidda camiri weyno maqaayadaad camiri haddaad muslimiinta aad xoojini weydid oo muslimiinta culammada iyo ducaadda garab u noqoni weydid dadka baadilka iyo siyaasadda iyo qabyaaladda ka shaqeeya kuwaabaad heel u noqonaysaa lidaalika sidaa daraaddeed insha allah wada niyooda inaan wakhtigeenna dhaqaalahayna ilaahayna geliyey inaan diinteenna ugu gargaarno siday doontaba hanu isticmaalne yaa sidaa niyoonaya insha allah dembigeenna allaha dhaaf dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf diinta allah inoo macaaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo mawtaadkeenna allaha u naxariisto amniga iyo iimaankana allah inoo ziyaadiyo dadkan waddankan nagula noolee kale diinta aan nahayna ilaahay hidaayadda ha ku galladaysto abwaab alhidaaya allah u furo muslimiintana baaba towba allah inoo furo muslimiintana albaabka toobadda allah noo furo gaaladana albaabka hidaayadda allah inoo furo dadkeenna luqadeenna ku hadlaya dibadaha nagaga maqanna meesha ay joogaan allah inoogu ilaaliyo diintooda allah ku ilaaliyo caqiidada allah u ilaaliyo shariicadooda islaamka allah u ilaaliyo kuwa la bedelo ilaahay kama dhigee kuwa iyaku wax bedela allah ka dhigo in walba oo kurbaysana kurbada halka ka haysta allah ka qaado qaar baa naga xanuunsan oo caafimaad loogu duceeya mar walba leh caafimaad sariica allah siiyo midul muraadkiisoo macsilana gacanta midig allah ka siiyo istiqaamana allah ina siiyo khaatimadana allah inoo hagaajiyo cadaab alqabr iyo cadaab almaxshar iyo cadaab annaar allah inaga badbaadiyo firdows alacla allah inagu deeqo jiwaar alxabiib calayhi salatu wasalaam allah ina geeyo محمد عليه الصلاة والسلام حوت كيس الله ينجو أروريو هدي كيسنا الله ينجو دلو استقامية قبولين الله ينسيه هذا وبالله توفيق صلى الله على نبينا محمد.